maxamed gabane oo cabdisaaq bixi waxaan kusoo booqday beertiisa oo aan hal saac xoogaa u soo socday oo ku taala Silver Lake maxamed soo dhawow maxaad u sheegi lahayd dadka Soomaaliyeed ee degan Minnesota ama gobolada Mareykanka in xagga beeraha in beer laga samaysto dalka Mareykanka ama Minnesota dadka Soomaalida waxaan sheegi lahaa aniga 67 jira waxaan ka shaqeeyay baranay saddex sano kaliya aan baranay beerta haddana waa kan beerna dawladda haye biyaha waa ariga warkiisa daaqaya haye chickenka waa soo aragtay labadaas tarakter meesha taagan qalabka beeraha oo dhamma yaala sax dawladda lacag wax ka qaadi karaa sax dadka cadaanka ah oo wadanka joogan ka mid noqday sax haddaan dadka yaryar nafsi qaban sax marka haddaad rabtiin inaad future iyo mustaqbal yeelatiin beeraha sidaad ku baran ka shaqeeyo si uu dib yarna anaa inii sheegayo cabdisaaq bixi la xiriira sax maxaad fari lahayd dhalinyarada waxaan ka hadlayno dhalinyarada ugu daran dhalinyarada taagan magaalooyinka sax oo ninkii barta tarakter kaliya saacad wuxuu ku shaqeynaa $45 sax dadka isku dilay cawska ninkii dar yaqaan geedaha qalabka fiican lagu dar yaqaan ninkii yaqaan geedkaas sida qashinka looga dhex bixiyo sax geedkaas oo baamka looda lagu xareeyo sax markay ku xaarto dad loodar wadaa meesha geliyo oo ka xaqa sax kan waa sidoo kale sax kaas chicken gaaba la jinka lagu xareeyo qofkii shaqeeyay qalabkaas barta kaliya shaqo kale u raadina mal asaga la bariya dadka marka beertaada maxaa jooga beertaada xoolaha ariga jooga hay qudaartan inta waxa samid waa qudaar kaas waa yaanyo hay waa kabash kaas waa maashi toon naqash toonka geedka calinta wakal haas mar horan talaalay sax waxaas banaan oo dhul waa galay hadda waxaan ku talaali doonaa qare hay iyo waa dhiman yihiin qaranka talaalayna hay waxaan talaalaynaa oo kale basbaas baroni hay wixii yaanyo maashi basal cagaarti salaantaradii chicken yaa ku joogay ari chicken aa jooga iyo ari hay ariga hadde waa aragtay waa daaqaya sax gurigana waa gurigaagii biya gurigan waa gurigaan deganahay intaas leeg quruxdiisa gudaha haddaad gashaa jaabaysid maasha allah haddaad beer baratay dadkaana ku gartaan inay ku aaminaan oo lilaahi nin u shaqaynaa tahay wax lagu diidayo ma jirto sax dadkaad lamid tahay cadaanka shaqaa kaa xigta waxaa kaa xigta daacadnimo inaad lilaahi u shaqaysto sax soomaha jikinkoo kaasaan ariga ma tegey ariga haddaa halkaan u fadhiyey leela waa arag halkaas waxaa ku xaraysan waa chickenkii soo gal waxaan ku tukinaa وجد تكنكي صح نواد دلا ولو دلا كانوا ما انت العكب واد دلا وحول دلا يعني انت اصلا كان ولو دلا صح كاس حد كان انت انا كنت قاعد صوب حيسا صح وان كوريا انا دليل كوريا صح وكل كوريا كوا وكويغا هذا صباح على اول كدي كان كاس وسجوغ صح كان بالكدي صباح صح كوا صباح بلي بركدي صباح يا واو ايش قلت له 500 واي 500 حبو واو marka hawla taala haye meesha in la joogo magaalada sax oo meel iska taagnaado ma yaa la yiraahdo shaqo ma leeyahay sax iyada xoog iyo dhalinyarnimadii cilmiga la haysto sax soo qasaaro aan dadka ku taliyahay sax waxaan inay ku daydaan sax waxaan uu ku dayay oo dhulkan fashaab ka shaqeystaan dhulka falma hal qof ka shaqeynaa aniga taraktaran kooda sax wax aniga qabto male ma ayaan baa tarfiir sax kan waa kullu falay sax kaas waa kullu abuuray صح qalabkii dhan waa dhan yahay kan waa kii lagu falay صح dhulka lagu falaa kaas waa lagu abuuray صح kan waxa ariga lagu qaadaa صح kaas tarakta kaliya lagu qaadaa
ariga waa kana marka sarigina dadka carraa u leeyahay dhulkan waa 40 hektar wey 40 hektar intaas waa tabcan tahay intaan la xoolo daaqdaaqaan iyo jikinka oo meeshan ku ridaa meeshan ku ridaa kaligaas waa u dhowaa meeshaas xagga ana iskala xisab beertaas ma sha Allah hawska laga jaraa ariga waa kan soo dhirgay waa ka sax marka waxaan kula talinaa Soomaalida sax inay waxyaalaha stresska looga shaqeynayo sax dhalinyarada la baro صح وياكل إني برا عروتوده صح هدي بري ويان صح عروت ما فاعية haddii dad dhalinyaro ah ama dad Soomaaliyeed oo beeraha jecel ay rabaan inay mutadawacnimo kula sameeyaan ama volunteer ku noqdaan beerta kula yimaadaan maxaad ka leedahay intaas diyaaran u ahay ay inaan dhalinyarada inta baaga mudada meesha kariid ugu sameeyo صح waxaan kaloo ugu diraa beer fariid ka sikow صح basic oo electricity صح niman oo volunteer ku baraay صح iyo karbatar niman volunteer ku baraay صح iyo farming kuna anugu baro صح intaas oo dhan soo udaraya ma sha Allah wakaas arigna waa kan waxaas markiiba dawladdu waa aqoonsanay صح qofkii oo run sheegay صح markiiba waa la siinaa wuxuu rabo ها waxay u baahan yihiin bas inay meeshan imaadaan 6 bilood oo inta roobkana ila dhameeyaan صح aniga anaa kaalmeynay waliba anaa kaalmeynay صح aqoontiidana waa baraa صح waana kaalmeynaa waliba ما شاء الله marka intaas ما شاء الله aad iyo aad baan ku soo dhaweynayaa waxaana ballan qaaday inaan dadka gaarsiin doono fariintaas waa dhamaatay aad baan ugu faraxsanahay